oday aad iyo aad nabadoon u ah oday u ah waayo aragnimo iyo khibradna u lahaa golo shacab hogaamintiis ayuu ahaa khibraddaas iyo waayo aragnimada uu lahaa iyo dulqaadkiisana waa midda lagu yiri waa golihii shacabka ugu muxuu ahaay habboonaa ansixinta shuruucda nambarka shuruucda la ansixiyey waxtarkooda dastuurka iyo hogaaminta muddadaas oo golahaasi aanay khilaafyo waaweyn oo culus iyo colaado waaweyn aanay ka dhex dhicin ee howlihiisa ay si deganaanshiyo badan ku jirto ay u socdeen waxaan rajaynaynaa insha Allah bedelkiisana bedel khayr qaba inuu noqdo hadii alla yiraa oo golaha si hogaamiya inta kadib dalka Soomaaliya walaalayaal waa wada ognahay dadka meeshaan fadhiya inta badan golihii shacabka iyo aqalka sare ka koobmaan sharci dejinta dalka iyo maxaan ku raada golihii wasiirada intaba xogogaal ayaad u tihiin wadadii dheereed ee la soo maray safarkii la soo galay wadadaas dheer oo aad iyo aad wada uu culus ahayday laakiin culays kasta iyo maxaan ku raadaay daal kasta oo laga soo maray maanta aan laga qoomameynayn ee lagu faraxsan yahay wixii la soo qabtay maalintii baarlamaanka golaha shacabka khaasatan aan dhaho ama labada aqal ee baarlamaanka la dhaariyay ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay yihiin loo dhaariyay dalku sidoo ahaa iyo maanta sida uu yahay muuqaal ahaan gudaha haday tahay iyo dibadda muuqaalkiisa ah haday tahay intaba waa la wada garanayaa dhismayaal iyo infrastructure-ka ama maxaan ku raahday waxa ka qabsoomay dawlad goboleedyada waa la garanayaa siyaasaddu waa iska dhib badan tahay kala ra'yi duwanaanshiyo siyaasadeed markastuu jira waana soo jiray dabcan haddana waa sii jiri doona laakiin waxay ahayday arrin aad iyo aad looga xumaado in ra'yiga dadka qaarkii ay isku dayeen in ay ku cabiraan ra'yigooda si aan habboonayn oo xoog iyo qore caaradii ay ku jirto ayadoo walaalayaal laga daba leeyahay waa la garanayaa walaalayaal 4 sano ee la soo dhaafay inta juhdi iyo dadaal ee dawladda federaalka ah iyo hay-adaheeda kala duwanba ku bixiyeen kala duwan aragti kala duwanaanshiyo kasta oo siyaasadeed oo jirta in si nabada lagu xalliyo inaan annagu meel kasta iyo maqaam kasta oo title ama protocol oo aan lahayn inaan ka soo degno oo aan u soo degno hoos si aan dadkeena aan ula nimaado dad protocol ahaan mustawaha dawladnimada meesha ay ka soo geli karaan la garanayo ayaad ogtihiin sida aan ugu soo daadegnay oo aan hoos ugu nimiday inaan la fariisano dhageysano la hadalno waxna u sheegno lana doodno welina kamaanaan daalin weli waxaan diyaar u nahay goob kasta iyo golo kasta in aan maxaan ku raahday la fariisano la hadalno doonno inaan ra'yigeena ku qancino dhageysanana ra'yigooda haddii uu naga fiican yahayna aan qaadano naga fiican yahay iska daaya xataa ra'yi lagu wada jirayo oo dalkana hore u wadayo kuma wada jirayno meesha aan fadhino bartiisiqaan bari uma kororto kuma wada jirayno laana laguma wada jiri karo laakiin ra'yi aan ku wada jiri karno taakana Allah ka dhigata in yar oo aan horay tabar yar oo dhaqaaq yar ah aan ku sameyn karno dalkii horay oo ugu socon karo haddii aan helayno waa qaadanayna horena waa usoo cadaynay waa qaadanay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in aan u sheegno siyaasadda dadkeena mas'uuliyiinta ah ee la doortay ee jooga ee mustawa kasta leh wixii aan jeclaan lahayn oo dhan ma hayno laakiin wixii lagu wada jirayay ee dadku wada aqbali kareen ee golayaashii loo ikmaday in ay go'aanada gaaraan ay inta ka doodan ay aqbaleen aan haynaa ra'yi wixii nala fiican yaa intaan soo qaadnay aan keenay baarlamaanka federaalka ah waana hay-adda xaqa u leh dastuuriga ah inay go'aan ka gaarto amuurahaas
haddii sharci looga hadlayo dalka dhan uu leeyahay, haddii dastuur laga hadlayo, haddii maxaan ku rahdaa heshiisyo caalami ah iyo laga hadlayo, dhammaan hay-adda xaqa u leh dastuuriga ah inay go-aan ka gaarto, go-aankeeduna uu kama dambays yahay baarlamaanka federaalka awaaye. golaha wasiirada ma aha, labada qaybood oo baarlamaanka mid kamida ma ahan, maxaan ku rahdaa madaxweynaha ma aha, waxa waaye baarlamaanka waaye. wixii baarlamaanku soo ogolaado ayaa madaxweynuhu uu markaa kadib uu daba kacaa, uu ku raacaa, uu ku ansixiyaa. haddii ra'yi kale uu ka qabana uu dib ugu soo celiyaa, uu yihaaho sidaan ay dhaantaa, ama sidaan ama ay muxuu ahaaye wax ka dhiman yihiin. sidaas daraaddeed ayaa anagu ra'yigii aan qabnay wixii nala qurxoonaay ee dalka maslaxadiisa anagu markaanu arkayna aragtideenna ahay, baarlamaanka mugaankeena waa nalagu diiday, waa laga fiican yahay nala dhahay ra'yigiin. dood iyo dacwo kamaanaan keenin, annagaaba niri, annagaaba keennay, annagaaba ka dhacnay. see loo diiday, maxaa loo diidaa maanan dhihin. anoo madaxweynaha jamhuuriyadda ah oo xaq u leh inaan dib u celiyo baarlamaanka ra'yigan ha laga fiirsado, ciladahan uu leeyahay ama waxaana ka imaan karo ma dhihin. waayo aan u dhihi waayo ma xuma, ra'yigayga haddii laga duwan yahay ra'yi ka fiican la barbar dhigay inuu fiican yahay waa ku qaadanaya, waa qodob. in lagu wada jirayo dalkana uu hore u dhaqaajinayana waa ku qaadanaya, waa qodob kale. labadaas markii laisbarbar dhigay waxyaabo badan oo wixii aan rabnay ama aan soo jeedinay xukuumadda iyo maxaan ku rahaa golaha dowlad goboleedyada isku raaceen, ay soo qoreen, ay soo saxiixeen, ay soo jeediyeen. baarlamaanku ra'yi ka duwan markuu qaatay, kii baarlamaanka ra'yi noo ah, kaasaa qaraar noo ah, kaasaan wada raacday, kaasaan daba joognaa. nasiib daro xubno baarlamaanka ka tirsan oo baarlamaanka ka dooday oo ra'yigoodii dhiibtay, oo aan dhihi karo nasiib wanaag baarlamaanku ra'yigoodii qaar kamida wuu qaatay, waa lagu raacay koodii, oo baarlamaanka qaraaradiisi uu ku darsado qaraar ku gaaray. markuu baarlamaanka qaraar gaaray kadib inay inta soo istaageen haddana ay yidhahdeen maya 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 maya, waxaasi sax ma aha. waxaa nasiib darro kale ah, shalay markaan raadinaynay kursiga shacabka soomaaliyeed intaan soo hor istaagnay baarlamaanka federaalka oo wakiil ka ah shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, wakiil ka ah, soo hor istaagnay oo aan dhahnay haddii la i doorto 1 2 3 samaynaya. maalintii la i doortay ama qof la doortayna aan diido, dadka maan siraynay, baarlamaanka maan siraynay. maxaa isbedelay oo weyn oo dhacay oo ra'yigii oo dhan maxaan ku dhahdaa bedelay? ra'yi bedelmi kara ma ahaa, ma ra'yi markaas curtaya, mase waa ra'yi soo socday oo muddo soo jiray. dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaa rabaa waxyaabaha inay qiimeeyaan oo ay dib u eegaan oo ay fiiriyaan. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inayna qiimeeyaan, siyaasiyiinta haddaan nahay ama hoggaanka aan joogno ama aan usoo soconno oo aan rabno in nala qiimeeyo waaye. waxaana lagu qiimeynayaa waxaan dhahnay iyo waxaan sameynay yaana lagu qiimeynaya. waxa qalbigeenna ku jiraa dadku ma oga, ma ogaa kartid waxa aniga qalbigeyga ku jira, laakiin wixii aan sameeyey ficil ahaan iyo wixii aan maxaan ku rahdaa ku hadlay ayaad igu xukumi kartaa, ad igu waxayn kartaa. dalkan dowladnimadiisa meesha ay joogto inaan ka dhaqaajino ayaan ballan ku wada galnay. ayadaan kutubka jaamaca ee qur-aan kariimka aan gacanta midigta ah korka uga saarnay inaan dalka aanu dhaqaajino, dhinac fiican aanu dhaqaajino. dhinaca adduunka oo u dhaqaaqay balaayiinta qof ee dunida ku nool ee muslim iyo gaalaba leh, dhinaca ay u dhaqaaqeen ee wanaagga ay u aadeen, ilaan shucuubta adduunkan ka mid nahay inaan la dhaqaaqno la aadno. 36 sanaan ka gaabinay, aan dib uga dhacsannahay, inaan dib uga sii dhacno maaha. waxaa intaas dheer walaalayaal, dalkan taariikhdiisii waa ognahay burburka kadib
dagaal la sokeeye qabqablayaal dagaal hogaamiye kooxeed kooxo kale oo qaarkood muxuu ahay diinta ay sheegteen ay ku dugaaleen waxaasoo dhan waa soo marnay waxaasoo dhan marka la isku soo celceliyo hal shay oo ay ka midaysnaayeen ay lahaayeen halka shay waa maxay aniga hebelaa la iyiraa saanaa la yeelaa hebel aniga saanaa la yeelaa oo waxa keliya aan dhihi kara ay tahay yaa tol ii ahay gadaal inta fiiriyo tolkeeyow aan dhihi karo nidaam iyo institution iyo shuruuc iyo lawaaix la garanayo oo dadku ay og yihiin inaan ka fogaado go-aan dad badan ka dhaxeeyo oo ay dad badan inta ka tashadaan inay isla gaaraan ay tahay inaan ka fogaado oo maya anigaa iri anaa rabo anaa qaba inaan maxaan ku irahda aan iraahdo sax maaha siyaasadda qofaysan aan ka nimaado siyaasadda aan ku dhex maamulno institutionka dhexdiisa institutionka markaan leeyahay xukuumadda iyo sharci dejinta ma aha xisbiyada siyaasadda siyaasad ma rabtaa haa hal meelaad leedahay xisbiyaad leedahay xisbiga aad xisbiga noocaad rabto iyo mabaadida aad rabto ku salayso oo qawaaniintu ogoshahay xisbiga aad xirfad maad leedahay haa ururka dhakhtar maad tahay ururka dhakhaatiirta aad halkaasaa dhakhtarnimada iyo masaalixdeeda looga hadlaa beeraley maad tahay haa ururka beeraleyda maxaan ku irahda odayaashiisa la yaqaana aad halkaasaa danaha beeraleyda yaa lagu hayaa macallin maad tahay ururka macalimiinta aad siyaasi maad tahay xisbi aad keligiis qof taagan keligiis rag siyaasi ma aha waxaan rabaa dadka soomaaliyeed qarniga 21aad inay fahmaan nin keligiis tooxda ah waa ku soo dhibaatoonay waa ka nimiday soomaaliya waa inay ka gudubtaa oy ka graduate garaysaa waa inay ka qaangaartaa waa inay ka dallacdaa meeshayna inaan joogno macquul maaha dalka xisbiyo siyaasadeedu aaday xisbiyo siyaasadeedaa lagu soo tartamay doorashaa lagu galay waa lagu kala guulaystay dad ururadaas siyaasadeed ee xisbiyada noqon doona qaarkood ku soo baxay maanta ayaa mas-uuliyiin ah oo sharciyad haysto oo qof la magacaabay oo dikreeto lagu magacaabay aan ahayn horeyaan u sheegnay waa ku celinayaa waana ku celinayaa dadka soomaaliyeed qof aanay dooranin ma xukumaayo waqti hasaga dhuminina meesha ugu hooseyso mustawaha ugu hooseeyo xukunka iyo mustawaha ugu sarreeya intii ka dhexle dadka soomaaliyeed qof ay doorteen ayaa xukumaayo sheekh aadan maxamed nuur waxaa doortay golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeedna waxaa doortay shacabka koonfur galbeed waxay wakiil ka yihiin shacabka koonfur galbeed codkii shacabka koonfur galbeed ee loo soo dhiibtay ayay ku doorteen sidaas daraaddeed hogaamiye muxuu ahay sheekh aadan waxaa doortay shacabka koonfur galbeedaa doortay 13 degmo ee koonfur galbeed ee ay suurto gashay in ay doorashada ka dhacdo dadka xukumaya degmada afgooye degmada baraawo degmada xudur degmada baydhabo degmada diinsoor dadka xukumayana dadka degmadaas deganaa doortay dadka degmo kasta degan waxay doorteen dadkoodii degmada xukumi lahaa iyo dadkii dowlad goboleedka ku xukumi lahaa ilaa degmadan dadka ku nool dantoodii degmadana waa taallaa dowlad goboleedkana waa jirtaa dowladda federaalkana waa jirtaa tii dowladda federaalkana waa usoo socotaa way dooraan degmo kasta 3 doorashay gashay ay gelay hadday u dhiman tahay councilkeedii degmada inay doorato
golihii wakiilada ee dowlad goboleedka inay doorato baarlamaanka federaalkana inay doorato degmadaas dadka degan degmadaas saddexdaas cod ayay bixinayaan sidaas daraaddeed dalkaani waxaa ka bilaabatay dhaqanka ah dad ay dadku doorteen hogaamiyayaal ay dadku doorteen in ay dadku amuurahooda shu-uuntooda inay go-aan ka gaaraan war in cid doorata aanay jirin oo keligii boodayo dhacayo ordaya oo dowlado shisheeye inta lacag ka soo qaato lacagan qaybinaya codadka waa gadanaya dadka waa gadanaya dhahayo boqolaalka kun ee qof ee koonfur galbeed ka codaysay yaa lacag la gaaro yaa lacag sii karo corruptionka meesha ku dhammaadana waa meeshaas ogaada doorasho qof iyo coda waxay dishaa corruption ay dishaa musuq maasuq iyo cod gadashay dishaa yaa ii tolehey dabbaal meel inta soo istaagay yaa ii tolehey yiraahday dishaa dalkan masiirkiisa saxda ah meesha uu ku hagaagi karo waa doorasho qof iyo coda way bilaabatay way dhacday wayna saasayna ku dhammaanaya ilaahay idinkiisa diyaar la yiraahdo waxaan ogolnahay ciddii cillada ku aragta ilaa waxa doorashadu iyo nidaamka iyo waxa ay aayado munazal oo ilaahay soo dejiye maaha fikir dadeedoo la keeno waa hadduu goldoloo la leeyahay waxaan raalli ka nahay ogolnahay miiska in lasoo saaro la yiraahdo meeshaana cilladaana ka jirtaa nidaamka xisbiyada cilladaana ka jirto nidaamka xeerka doorashada cilladaana ka jirto guddiga doorashada garsoorka ah ee dadka u dhexeeya muxuu cilladaana ka jirta waqtiga cilladaana ka jirta maxaan ku yidhahdaa amniga cilladaana ka jirto laakiin aniga mar adduunyada aniga mar hore ka tagtay soomaaliyana hadday ka tegay hadda ay ka tegay haddii alla yidhaah marka waxaan rabaa dalka jihada u dhaqaaqa waa jihadaas doorasho sideedaba eeday leedahay waxay eedda u leedahayna waxay tahay waxay leedahay kuwa guulaysta iyo kuwa laga guulaysto kuwii laga guulaystayna dadaalkaynaa yaraay waa dadaal yarayne sanadka dambaan dadaalayna ma dhahaane intay ka dhacday xaggaa ka duleeshay iyo xaggay ka jeexneed iyo xaggaa laga laabay iyo xaggaa laga waxeeyey ayaa muxuu ahay jidka lala soo wada istaaga caadi waayo soomaaliya u gaar maaha marka waxaan leeyahay walaalaha siyaasadda danaynaayo ee heer kasta doorashada waa sidaas kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay leedahay kuwa laga guulaysta noqo dadaalkaaga la imaaw dardartaada la imaaw fikir lagugu doorto qurxoon la imaaw mustaqbalka ka hadal berri maxaad damacsan tahay oodan been ka sheegeyn dalkan iyo dadkan berri maxaa la jeceshahay maxaa la damacsan tahay sheeg oo dhabkaa ah xeeladaysi iyo maxaan ku ihahdaa cambaign iyo luuqmar aan kaa ahayn sheeg dadku ra'yigaas kuu doorto waa sheegnaa siyaasaddu suuqay leedahay suuqna badeecaa lasoo dhigtaa oo lagu kala gataa ninkii badeeca xun keensado laga gadan maayo ninkii badeeca fiican keensadana waa laga gadanaa suuqa badeecada la keensadaana waa ra'yi aragti soomaaliya noocaan ahaan rabaa berri inaan horseedo oon hogaamiyo oon ka mid noqdo oon wax ku darsado oon talo ku lahaado saanaa lagaa rabaa laakiin cari gara anaa og shalay basaan jooga shaanaa laga dhacay intaa laga booday xaggaa la waxeeyey yaahu aa dhacday maxaan ku ihahdaa hebelow waa xun yahay waa qalqalloocan yahay kaas waaye waxaasi wax macno ma laha shalay waana dhaaftay wixii shalay naga khaldamay ma sixi karno waxaan samayn karnaa maanta inayna naga khaldamin beri inayna naga khaldamin laakiin shalay inta u noqonno wixii shalay ahay ma soo sixi karno laakiin beri inayna naga khaldaminaan yeeli karnaa shalay waayo aragnimo iyo khibraday leedahay laakiin ninka shalay la nool shalayaa kan dhacday
shalay kaas war shalay maalintaas maalinteeda shalay maanta ma ah duruufuhu isku mid maaha duruufihii shalay duruufaha maanta waa kala duwan yihiin duruufaha maanta iyo kuwa berina waa kala duwan yihiin u diyaar garow kuwa beri soo socdo ee quruxda badan u diyaar garow sida loo qurxi lahaa loo hagaaji lahaa marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed yaanay ku kadsoomin kelmadaha oraahyada ee faaruqa ah oo waxba aanay ku jirin kelmadaha oraahyada xumaanta iyo colaada iyo maxaan ku raahday yoomul qiyaamaha inuu dhacayo ka sheekeeyo waa la dumayaa waa la dhacayaa waa la kala tegayaa tuulada yaa la kala aadayaa jahannam ma jirto meel la kala aadaa male meel la kala tegaa male 36 sano duruufo gaar ku jirnay maanaan kala tegin waa isla joognaa waan isla sii jooginaa nin xun hadduu hogaamiye yahay iyo hadduu mid ka hoose yahay asaa xun reer hebelaan xumayn degaan hebelaan xumayn cidaan xumayn dowladda federaalka ee Soomaaliya baryahan waxaan maqlaa dowladdiyo muxuu war xasan sheekh nin oo bulsho raydo ba ahaa jiray maxay tahay hadda muxuu ahaay anu qor ma qabo weligeyna ma yeelanin maleeshiyana ma yeelanin waxna ma yeelanin dadka meeshaan fadhiya in badan oo kamid oo saaxiibada ah oo soo wada noolay ay garanayaan maalintii doorasho la doortay bishii September 2012 baabuurka aan raacayo oo askari ilaala ah oo raaca maanta saa igu horeysay noloshayda intaan soo noolay gurigeygana weligay waardiye ma joogin baabuur aan magaaladan ku dhex wata magaaladan ku noolaaye dhex mari jireen weligay ilaala ima raacin ma ahayn dadka ku xaragooda qoryaha iyo hubka iyo qajajacda ma ahayn haddana weli ma ahay hala dhigo hubkaan taagana hubka hala dhigo waa taagana mas-uulaan ahay 5 jeer ayaa cadowga khawaarijtu inay idilaan ay isku dayaan oo la wada og yahay magaalada Muqdisho iyo banaankeeda intaba ومع ذلك ما أنت وحان جوجا بابور عيدا وقرية كرر عن إنه يدبك عنه إيران مجان مجال حمر جوجو لأنه أم بهني لا ما بهنا دبك بابور كيهوب كيقريها أي حرجة كان نقطي كو حرجون هدان وأسكري قرية شلب حبة السيرة قالوا درس عن وأركين أن دبك إن أنا أجيدن وأركو مركز في عنتها الأركاية مركز بلايتها الماركو عندها دتك هوجانك أي فرصدان وصامر مجالدان ونمان هوجامية كوحديا ومجالد مريان مجالد لن أي جريريسو بابور متكو كوية متكو كقريوية قبا مجالد اللي يراد أمان دلهم هلين ما أنت عندنا واديجنا قريها ديجا بابور تديجا أمانا هيسنا كي ورك في عام أرجع قرية وجيدستي سواء من در وقاده لكن مركا لمعنينيو دولة لماذا عصر قام محل يرى دولة ستيت واستعمالك هبك شرعية سن أما واستعمالك أود شيء شرعي سن أود شيء شرعي سن الدولة بس عليه قف مرة ما يلانكر والرأي جاء سو عبر بنانك إماو مظاهرات كان لو أقول يه بنان بحال لو أقول يه مسؤولية قاضو مقرب وحقربها النقلن بروبرتك ضدك أمانك دجناشيها حق الربن لكن قريان سوق قادنا قاب أيام دويتو نمنا صاحبها وحكوا دودا مظاهرات سمعين وانو لو ديدي قرني كوي لباتنات او ميل كستاهي محوها اي درون ميديا وليها يصوريسو wax qarsoomi kara ma jiraan toban wiilo dhalinyaro ah masawirka xasan sheekh oo qalqalloocan inta loo soo dhiibo qoryada miishaarana lagu ilaaliyo masawirka xasan sheekh oo qalqalloocan darbigaas ku dhigsaa daartid xataa
qof ka fujinaysa ma leh laakiin qorda bishaar la soo daba kicina ku ilaalin wiilasha masawirkaas qalqaloocan watay iyo kuwa qoryaha wato ilaalinaya kuwa qoryaha wato ilaalinaya badnaay tira ahaan waa sawiran yihiin ma ka been sheegaya waa la arki karaa maanku ha shaqeeyo caqligu ha shaqeeyo dhaqanka suuban ha shaqeeyo dowladnimada waa muqadas ha la ilaaliyo lianna waa noloshii dadka waay mid tabar yar mid baahan mid hanti leh mid baahiyo gaara qabo intaba waa soo marnay qax kala orod kala muxuu magaciisi dowladdu amni darro ma sababayso amniyay sababee amni darraha sababin adiga muwaadinkow dowladdu jidadkii magaaladan xirxirnaay ee intaasoo sano soo xirnaayay furtay ha xirxirin jidadka ha xirin hadda jidadkii la furay oo muxuu ahay intaasoo sano xirnaay maanta in qof inta yimaado midna baabuur dhagaxa ku dejiyo midna baabuur carraa ku dejiyo midna maxaan ku yidhahdaa haskows oo isku rakibo macquul maaha waa ku dheeraaday aada iyo aad ayaan mar kale iyo mar kale aan u hambaliyeynayaa hogaamiye sheekh aadan maxamed nuur waxaan sidoo kale hambaliyeynayaa mar kale iyo mar kale shacabka koonfur galbeed ee sida deganaanshiyaha iyo ammaanka iyo maxaan ku yidhahdaa discibliinka leh inta u galo doorashadii ka soo baxday xamar doorashadii ka dhacday waxaa la yidhaha askariya booliis ah nin dharbaaxe 13 degmo ee koonfur galbeed doorashadu ka dhacday askarina qof ma dharbaaxin xataa marka ilaahay idankiis kuwa dambana waa sii qurxoonaan doonaan doorashooyinka teeramyada dambe imaanayana midaan waa kasii qurxoonaan doonaan laakiin haddaynaan bilaabin wiil inta dhasho ma dhaamiyo wiil inta dhasho inuu dhaamiyo fitraa u dhexaysa war wiilkii hadda u dhashay aan fursad siino inuu gaaro cimrigiisa iyo xooggiisa awoodiisa meeshuu ku dhaamin lahaa oo reerka biyo u keeni lahaa dimuqraadiyadii hadday bilaabatay aan gaarno meesha dimuqraadiyada ugu fiican afrika inaan lahaan karno waana soo lahaan inaan lahaan karnaan aaminsannahay ilaahay haddana waa leenahay